garabyada Haweenka Sadaxeda Xisbi ee Somaliland ayaa waxa ay maanta kulan ballaaran la qaateen guddiga dabagalka xeerka kufsiga ee ay u xilsaareen ururada arrimaha bulshadu waxaana xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ay si weyn uga codsadeen in ay ansixiyaan xeerkaasi oo ay hore u ansixiyeen ugu horeynba waxa kulankani ka waramay ujeedadiisa gudoomiyaha guddiga dabagalka xeerka kufsiga ee ay u xilsaareen ururada arrimaha bulshadu Axmed Yuusuf Xuseen maanta oo jimco ah waxaa noo suura gashay inaanu la shirno ama aanu shir la qaadano annagoo bulshada rayidka ah kooxdii u ololeysay xeerka kufsiga waxaa noo suurta gashay inaanu shir la yeelano wakiilada saddexda xisbi qaran ee Somaliland ucid wadani iyo kulmiye oo maanta nagala soo qayb galay nalana wadaagaya dareenkooda arintii aan wadnay ee ahayd xeerka kufsiga in loo daayo sidii golaha wakiilada ay ku ansixiyeen oo lagu qiimeynayo xaaladda maanta ka taagan kufsiga dalkeena geestoodana waxaa halkaasi hadal ka soo jeeday gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga talada Somaliland ee kulmiye Dalashira Faarax xogayaha xisbiga xuquuqul insaanka ee xisbiga macaaridka wadani Faaduma Saciid xogayaha qoyska ee xisbiga macaaridka ucid Khadra Cismaan Faarax waxaana si weyn ay uga qayliyeen in xeerkani ku jiro qodob dhigaya in gabadha la kufsaday hadii ay 48 saacadood gudahooda ay ku soo sheegi weydo dhibaatadeeda aan waxba loo qabanin dacwadeedana la furaynin inaanu ka hadalno xeerkii uu hore u baaskareeyay golaha wakiiladu una gudbiyeen guurtida oo haddana lagu soo celiyay golaha wakiilada in sidii hore ee golaha wakiiladu u ansixiyeen ay u baaskareeyaan haddana u ansixiyaan waayo sababaha aan u leenahay ha baaskareeyaan waxa kamid ah in ay marka la kufsado 48 saac inta reerkooda ka baqayso ama inta wax la ogaanayo ama inta la xuraanayo 48 iyo in ka badan ba lagu soo gudbin karo miyiba laga keenayaa tuula laga keenayaa marka waxaanu leenahay golaha wakiilada sidii hore u baaskareeya baahi baa loo qabaa umada Ilaahay oo dhamina sharciga ah ansixiseen markii hore raali bay ka hadla laakiin guurtidu sida ay soo celisay waxaanu leenahay ka daaya sidii hore u ansixiya waa codsi baaq dheer ah oo aanu dirayno golaha wakiilada 48 saacadood ma aha waqti ay qof ama ilmo yar oo la soo kufsaday ma ilmo yar ama gabadh lagu soo kufsaday miyi ay ka gaarsiin karayso dacwadeeda iyo oo marka ay falkaas oo kale ku dhaco haweenka ay baqasho iyo habrasho fara badan ay ku timaado marka iyada oo aanu sababeyn karayno oo sababo fara badan loo sameyn karaayo waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa si xushmad leh inay golaha wakiiladu sidii ay markii hore ay ku ansixiyeen ay ku adkaystaan oo sida ku daayaan halkan waxaan codsi uga jeedinaynaa golaha wakiilada oo lagu soo celiyay xeerkii markii hore ay ansixiyeen oo guurtidu dib ugu soo celisay xeerkaas oo ah xeerka kufsiga oo hor yaala waxaan cod dheer anagoo haweenka Somaliland ah anagoo ah haweenka xusbiyada waxaan guurtida baarlamaanka ka codsanaynaa inay sidii hore ay ku ansixiyeen haddana ay ku ansixiyaan waayo qofka dhibanaha amba dhibtu ku dhacday 48 saacadood waxba lagama gun gaari karo marka wax nagu filan maaha 48 saacadood xeerkaana waa loo baahan yahay xaq aakhiro iyo xaq adduunyaba marka waxaanu ka codsanaynaa mar labaad in golaha baarlamaanku sidii hore uu ku ansixiyo Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.